waxaan halkan idinku soo tabinayaa maanse jacayl oo la magac baxday xurmad daran kana turjumaysa xiriir jacayl ah oo u dhaxeeyay wiil iyo gabar Soomaaliyeed socdayna in muddo ah rajadiisuna ay ahayd inuu noqdo mid midho dhal ah balse markii dambe ay gabadhii ugu gacan saydhay si ula kaca xiriirkana u jartay wiilku oo garwaaqsan waayay arrinka meesha ka dhacay ayaa naftiisa kula hadlayay ereyadatan gabadhana ku canaananayay sida xilkasnimo darrada leh ee ay wax u samaysay iyo sida qiimaha leh ee uu u xanaanin jiray una xurmayn jiray jacaylka yidhina sidan anaa u xidhxidhay naftayda nafaan ku xisaabtamaynin anaa u xayiray hankayga qof aan xurmo ii yagleelin anaa xiisaha u qaaday xasuusli'i ruuxii dhaafsan jacaylkan oo xushmeeya xidhiidhka dhexdeenna yaalla miyaad xumaheenna goobtay miyaad xanibtood ka booday intaad xaraf u raacday miyaad tirtirtaa xasuusta xikaayada sheekadeenna miyaad xoortaa wanaagga intii xasilooni taalli indhaha arag iyo xiskaaga miyuu xuub caadli saarmay dareenka naftayda xiiqshay xiskiyo maankayga doorshay miyuu xubiyey agtaada ka yahay xiisiyo warkooban miyay xubin diirnaxaysi jidhkaagaba xiro ku yeelan xasuustiya garashadaada anoo dadka kaa xigtaystay miyaad xume ii yagleeshay markaan xidhay hadalladayda anoo xalu waayey doorka guracan xaajada habowday waxaan xubbiyey ku sheegay xaqsoorka naftaydu siisay naftaadan ka xiisa booday xumbada daadkee dhammaata